kulanka wadatashiga istiraatiijiyadda ka hortagga cudurka daacun caloolaha Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankani ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay khubaro dhinaca caafimaadka oo ka socda dunida iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Kulankani oo ahaa mid heer sare markaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo xakameyn lahaa cudurka dilaaga ah ee daacun caloolaha ee xilliyada qaar ka dilaaca inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya khubaro dhinaca caafimaadka iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulankooda ay fuguri doonaan sidii loo xakameyn lahaa cudurka dilaaga ah ee daacun caloolaha oo xilliyada qaar ku fida deegaano badan oo ka tirsan wadanka Soomaaliya. cudurka daacun caloolaha ayaa loo aaniyay in xilliyada qaar oo ka dilaaco deegaanada miyiga fog ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah oo xilliyada qaar aanan haysan biyo nadiif ah taasna ay kalifto in uu kusoo boodo cudurka daacun caloolaha taasna ay waxyeelo gaarsiiso nafsadooda. sidoo kale daacun caloolaha ayaa la sheegay goobaha ugu daran oo ku fido isla markaana oo ku dilay dadka waxaa kamid ah xabsiyada ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. dadka khubarada dhinaca caafimaadka ayaa waxa ay ka dhageysan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo tan Koonfur Galbeed baahida rasmiga ah loo qabo sidii looga hortagi lahaa cudurka dilaaga ah ee daacun caloolaha oo xilliyada qaar ku faafa dadka ku dila qaybo fara badan oo ka tirsan Soomaaliya. labada maalin ee soo socota ayaa la filayaa inay si weyn ay ugu doodaan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed tan iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo khubarada dhinaca caafimaadka ee ka socda beesha caalamka oo kulan uga soconayo magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. biyo oo eedan liidata hadii biyo yara mas nadaafada biyo oo xumaata meelaha gala wali may leeyahay meel hagala kore cudurro badan oo la iska yaraw markii la jamca cudurrada ku dhalada biyo oo marka hormuud isku ay cudurka daacunka saas dartiye wali nasiiban waaltay dawladda Soomaaliya guutaan gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed geeka may leeyahay wasaaradda caafimaadka federaalka intii nool roogan qabiire oo dhinigaas may leeyahay ujeedadii intii wal ku qoran waana markaasayti daatadii maswaqti warbixintii xogti markii la aruuriyo ku damba in may leeyahay la ka kordhi biyo oo yaraadeen qaybo ka yihiin magayb kala kamay bamaraysay boosnarooyinka la may baa bulshada dhax qoodahayo control lahayna waa jeermis may baa isku dhaxalka baalis yaala ama nadaafad daro may baalistaala in may raayso dhibaatantaas ku may boosun shaano kormay ba muhiim jeem in la armay baarna oo dhax socdo xaafo iyo maray guriga iyo nafsatiyo ama kan gacantayta nafsiis may baa ka qaadso may baa aragan ilm aragtada ee nafsatiyo dadka samay boolan ku ay geemay baa shay oo muhiim ah walaalaas marka